iyada oo saamaynta isbeddelka cimiladu ay sii socoto. Dadka ku nool miyiga iyo magaalooyinka Soomaalidu waxay tusaale u yihiin awoodda waxqabadka maxalliga ah ee ka shaqaynta cimilo xasiloon. Tallaabooyinka firfircoon oo ay qaadayaan dadkeena oo keliya uma diyaarinayaan bulshooyinkooda jawiga cimilada ee isbeddelaya, laakiin sidoo kale waxay ku dhiirigelinayaan kuwa kale ee adduunka oo dhan inay mas'uul ka noqdaan adkeysiga deegaanadooda. Iyada oo la adeegsanayo midnimada bulshada iyo kulamada wax ku oolka ah ee Soomaalida, waxaa la sii wadi karaa kobcinta iyo ballaarinta barnaamij dhir-beeris ah si aan u ilaalino dhaxalka deegaanka ee jiilka mustaqbalka. Ficilka bulshada waxaa laga fahmi karaa dhiirigelin ah in tallaabooyinka yaryar ee si wadajir ah loo qaado ay saameyn weyn ku yeelan karaan wax ka qabashada isbeddelka cimilada. Helitaanka biyo nadiif ah ayaa muhiim u ah badbaadada nolosha. Sidaas daraaddeed, bulshooyinka Soomaalidu waxay sameeyaan hababka lagu maareeyo biyaha, waxay dhisaan barkado, ceelal iyo nidaamyada waraabka, taasoo u sahlaysa inay si hufan u isticmaalaan kheyraadka biyaha ayna isaga yareeyaan khatarta abaaraha. Isbeddelka cimiladu waxa uu caqabad iyo khataro lixaad leh ku hayaa bulshooyinka, xoolaha, magaalooyinka iyo sidoo kale deegaanka dabiiciga ah. Dadaallada wax looga qabanayo isbeddelka cimilada ayaa xal u ah jiritaanka intaas oo dhan, kaas oo ujeedadiisu tahay in la yareeyo dhibaateynta kheyraadka dabiiciga ah iyo la qabsiga isbeddelka cimilada. Maxay Soomaaliya qabatay si ay u yareyso oo ay ula qabsato dhibaatada ay keentay isbeddelka cimilada? Soomaaliya waxay ka shaqaynaysaa dhammaystirka qorshaha la qabsiga qaran. Waa qorshe dhammaystiran oo loo sameeyay si loo yareeyo lana waafajiyo saamaynta isbeddelka cimilada. Qorshahan oo si wadajir ah u soo diyaariyeen Hay'adda Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada iyo Hay'adda UNDP ayaa waxaa looga hadlay la qabsiga khatarta ka dhalata isbeddelka cimilada. Dowladda Soomaaliya waxay aasaastay Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Agoosto 2022 si ay qayb uga noqoto la tacaalidda mashaakilka isbeddelka cimilada. Dhaqdhaqaaqyada la qabsiga isbeddelka cimilada waxay ujeedadoodu tahay in la yareeyo saamaynta isbeddelka cimilada iyo ka shaqaynta adkeysiga deegaanka iyadoo dib loo soo celinayo lana ilaalinayo kheyraadka dabiiciga ah. Sidoo kale laga hortagayo inay dhacaan fatahaadaha lana dayactiro goobaha biyaha kaydiya. Howlahan la qabsiga cimilada waxay ujeedadoodu tahay in la dhiso adkeysiga beeralayda iyo bulshooyinka Soomaalida, yareynta u nuglaanshaha saamaynta isbeddelka cimilada iyo in la hubiyo wax soo saarka cuntada. Wadaagista aqoontu waa udub-dhexaadka isdhexgalka iyo horumarka bulshada. Jaamacadda SIMAD waxa ay xoojinaysaa aqoon isweydaarsiyada, tababarada, wacyigelinta, kulamada bulshada iyagoo awood u siinaya bulshada inay bartaan xirfadaha iyo aqoonta lagama maarmaanka ah si ay wax uga qabtaan caqabadaha gaarka ah ee la xiriira isbeddelka cimilada ee dalkeena.